hase yeeshee dambaarayaashii badan dhinacood tagno. Dambaarayaashii waxay mar labaad isweydiinayaan in la yaaban yihiin maadaama qofkan uu yahay qof aan tuugnimo u dhaataa inuu waxadaan meesha u imaan. China uu 330 dhaawac gaarsiiyay ilaa nafta kaga baxaysay, xataa markay nafta ka bacday kadib sii dilayay. Britain aan dhaawac saa weyn gaarsiin, madaxaas wax kaga dhuftay iyo caloosho saa u yara qalqalnayd, yani nawr weyn ma caloosho wax xagtin sidaas in mindida lagu xagxagay aan xataa hore loo magelin. laba nin oo doonayo qof inay soo dilaan amba doonayeen xadaan qofka tuuga ugu yaraan mindi yar buu qaataa, yani baaskoolada busii qaataa markuu doonayo wax xado. kuwa waxa doonayeen in nafti la iyadoo haddana ay sidaa tahay dhammaan waa alaabtii meherada taalay. hadday tahay mindi, hadday tahay dubbe, waxay doontaa ahaato waa alaabtii meherada taalay ee stoorka meherada ku jirtay weeyaan. Goorta qofku uu qof garanayay stoorka alaabtaas halkii ka taalay, sidoo buu garanayaa in alaabta yani lagu sameeyo waxa weeyaan dubbihii wax lagu sameeyo, yani alaabta meherada waa meel ka jabtay oo lagu hagaajin lahaa stoorka meherada inay taalo waliba halkii ka sii taalay garanayay weeyaan. askartu waxay ka shakiyeen Britain soo qaadeen way wareysteen. Britain waxay ku tiri waniga wax kasta saan nagu sheegay buu dhacay. kadibna wareysigii ku sii adkeeyay waxay dhahayn waxaan aad sheegaysid cidna ma rumaysan karto. tukuleeto waxyaalaha aan suurtagal ahayn in ay heleen ee ahday in raadkoodii markii gaariga ka baxeen la waayay. sidoo kale waxaan nin sheegin gaarigii China muu yaalin parking-kii ay markaas dhigan jirtay, laakiin meheradooda meel u dhow laakiin aan parking-keeda ahayn buu gaariga laga helay. askartu markay baadheen ay gaarigii soo heleenna waxay ka heleen koofiyad waxa ku yaala dhiig. sidoo kale gaariga dhiig baa ku yaala dhiigga gaariga ku yaala dhiigga China uu noqday, laakiin koofiyada dhiig ku yaalay wuxuu noqday dhiig Britain. tamacnaheedu waxa weeyaan koofiyada Britain ba xidhnay sidii gaariga u timi kadibna uu soo noqotay meheradii. taas la isweydiinay. sidoo kale Britain way xulxuli kartaa, waayo lugaha way isku xuli kartaa, laakiin sidii gamcaha xagga dambe iskaga xidhay. waxaa la arkay in xadhigii ku xidhnaa gamcaheeda in calaamado ilko ku yaalaan sidii in ilkaha ku jiiday si isku xidho xadhiga. Britain waxaas oo dhan baa lacag dhigay, hasay shuu qirin weyd in lagu yiri xadhiga ilkaha ku yaalaadaas ku xidhay koleeto koofiyadaadii dhiiga ku yaala sidoo gaariga u tagay. raggii may duuleen koorta 2 nin baa tiri, laakiin 3 qof raadkii bay yeelay meesha. marka maada bin sheegay nin quraataan soo weeraray meesade markeeda hore baan cilban soo weeraray. waxay kaga dhigtoon anigu waxaan mandilin aan maxaa saaxiibada dilay ee ka dhigtay. waxa lagu yiri Britain alaabta China shandada ka heshay aatirid shaqaalaha galanka hore ayaan ka iibsaday, laakiin shaqaalaha galanka hore waxay yiraahdeen waxa laba naga iibsan. laga yaabo marka inay dishay adoo ka baqanaya inay ku sheegtay laasima xubi qoran weyday, laakiin walaalkeed baa oo ogaalaalin soo kala iyadoo kamaradaha ku xirantay meesha walaalkeed baa ku weysoo la hadlaaya. isha maada dilimtay hadda dishay aan looyarka ugu fiican qareenka ugu fiican oo ku qabano isha. kadibna waxay tiri mayana waxaan mandin ku runta isha. kadibna waxay tiri ma doonayo inaan halkan ku hadlo. askarti ma doonayo inaan halkan ka hadlo macnaheedu waxay dawana maqlaya dan ku sheegay askartan maqlayso inay. kadib markay aragtay Britain in bad ku jirtay maadaama tiri walaalkeed ku tiri halkan ma doonayo inaan kaga hadlo wixii dhacay. markiiba dambaaleyaasha soo galay markay aragtay in arrinteedu fashil ku dhowdahay bes ka qaat wax kasta soo dhaceen. inantii aan ni sheegay ee laga eriyay farax kamid ah Lula Lemon sidoo kale in xadnin awil looga eriyay sidoo kale jaamacadooda ka xad jirtay wax inantaas qodob muhiim waxay Britain habeenkii uu arrintaas u dhacday sidii ay agaasimuhu ku tiri qof walba qofka kale ay shandadiisa baaray. Britain China ay shandadeeda baaray iyadoo ka daysa inay wax meheradu leedahay alaab in shandadeeda ku ritay
laakiin Britney waxba way ka weyday Gina iyadna shandadeedii soo qaaday way baadhay laakiin Gina waxay Britney shandadeedii ka heshay maro xataa ku dhegsan tahay waxaa dee qayliya hadduu qofka meherada magalaan soo siraha la baxa sanqadhkeeni uu ku dhegsantay kadibna Gina tiri maradan maxay ahayd wada tiri kuwa gelinka horeen ka iibsaday hablaha shaqaalaha gelinka horeen ka iibsaday ugu ilooweynayna waxaan ka fajiyaan Gina tiri waa kulliba waan ogide inaan dad waxba xadinay midabkeedu bay cajibiyay iska dhigta way iska baxeen markay baxeen Britney waxay ka baqbaqanaysaa in agaasimuhu u sheegto Gina maadaama agaasimuhu tiri waxba haddaad aragtaan qof waxaadaya inuu iska aamusa anigu si yar oo aamusnaanay ugu soo shaqaxdaa qofkaas waxaadaya Gina shandadeeda markay maradii ka heshay iska aamustay iska soo baxeen waxay aragtay Britney Gina oo telefoon ku hadlaysa kadibna waxay ka shakiday inay la hadli doonto agaasimihii amba inay la hadli doonto hablaha xilliga hore ka shaqeeya ay weydiinayso inay wax ka iibsaday kadibna Britney way soo dhaqaaqday Gina waxay ku tiri waxban shandadeeda baan ku soo ilaawa meesha kadibna Gina waxay tiri tamam soo kale saan Gina uga shakinin Britney waxay ku tiri jaamacadda groupkii jaamacadda ay soo wareerinaya waxay maadaama Gina master dhigan jirtay oo jaamacadda masterka ay waday ina mar xagga dambe ka galnay bay ku tiri baaka dambe aanay macaamino iman badad wax naga iibsanta anagoo soo xubnaan kadibna waqtiga nagu sii dheeraan haye markii xagga dambe ka galeen markii Britney way weerartay Gina way weerartay wixii dee meeshii meheradiisa u daadsanayd dagaalkoodii ka dhexdhacay bay ahayd laakiin Britney Gina way ka xoog weynaatay maxaa yeelay inkasta Gina ka yara buurnayd laakiin ma buurnayd laakiin ka yara laf weynayd ka cad lahayd Britney ay doonay laakiin Britney waxay ahayd gabadh ciyaaryahanada kubadda soo ciyaari jirtay sidoo kale ciyaaryahan ah jimicsiga jecel wax noocaas ay ahayd si awgeed bay ku xoog weynaatay wax kasta oo gacanteeda ku soo dhacay ku dhufatay Gina xataa telefisiyoonkii in muraayadii TV-ga intay sidaa u qaaday ay madax kaga bajaaqisay Gina kadib waxa lagu xukumay Britney in xabsi daa'im aan xabsiga lagu soo saari karin wax kasta oo dhaca bacadlihii Lulu Leymuna waxay sharaf uga dhigeen Ginadii dhimatay inay magacoodii xaga sare ay loof ku bedelaan iyagoo leh micnahooda Gina waan jecelnahay sidoo kale ubaxyo wax noocaas ah meeshii la dhigay ma garanay xuuta sida laakiin ma yacni gaalo saas sheekada ku dhamaatay laakiin ma kula ahayd markii hore sheekada saa u bilaabatay Britney inay tahay Gina dishay